Naambaxan balaaran oo looga soo horjeedo amni xumada waqooyiga galgaduud laguna taageerayay maamulka dawladda federaalka ee magaalada Cabudwaaq ayaa maanta ka dhacay magaalada Cabudwaaq. Naambaxan oo ay soo qabanqaabiyeen qaybaha bulshada ay ugu horeeyaan ururada dhalinyarada ee ka dhisan waqooyiga galgaduud ayaa looga gol lahaa sidii looga hortagi lahaa falalka amni xumo ee ka jira waqooyiga galgaduud isla markaana lagu taageeri lahaa maamulka cusub ee dhawaan dawladdu ay u magacowday degmooyinka waqooyiga galgaduud ee kala Cabudwaaq, Balanballe iyo Dhabbada. dadka banaanbaxayay ayaa magaalada ku soo maray socod dheer kuwaas oo watay gaadiid laguna soo xardhay erayo lagu muujinayay nabaddu ay qaali tahay amnigana la ilaasho lana shaqeeyo maamulka cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya. ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Cabudwaaq Gacal Ali Jabiin oo sheegay in haddii aysan shacabku la shaqeyn aysan waxba qaban karin sidaa daraadeed looga baahan yahay wada shaqeyn dhex marta shacabka iyo maamulka oo cidii amni khalkhal gelinaysa ay la socodsiiyaan laamaha ammaanka si looga hortago. waxaana bulshada uu ku amaanay dareenka ay ka muujiyeen in amni xumadu ay tahay nabad la'aan ama ay u muujiyeen dareenkooda wax qabad ee deegaanka ku aadan amnigu waa shayga ugu muhiimsan ee dadka noloshiisa ah ama dadku uu ku noolaan karo. qof aan amni haysanna noloshiisu caadi maaha. waxay dadka wax ku deeqaan waa nabadgelyada ama waa amniga sida ay dhalinyaradu ama u sugahayaan ama dadnimo ahaan ay uga muuqdaan ama sidii ay u muuqdaan maantay xorriyadda Soomaaliya ay haysato waxaa gaarsiiyey ilaahay ka soo kow ururkii dhalinyarada SYL oo muujiyey dareenkoodii ahaa inay dhaliyaan xornimo Soomaaliyeed. ururka dhalinyarada degmada Cabudwaaqna waxaa ka muuqata mid la mid ah in ay maantay halkan ay ka samaynayaan ama ay dadkooda horumarka u tilmaamayaan ama ay si qurux badan u soo bandhigeen dareenkooda ku wajahan in ay muujiyaan amnigu inuu yahay shayga ugu muhiimsan oo dadka deeqi kara. sidoo kale waxaa isna goobta ka sheegay in aysan jirinin nolol haddii aan la helin amni fiican maamulna uusan shaqaynin ilaa uu shacabkiisa ka helo taageero. madaxa arrimaha bulshada ee maamulka magaalada Cabudwaaq Khaliif Cabdisamad wuxuuna bulshada kula dardaarmay isku xirnaan iyo midnimo. alxamdulillahi rabbil caalamiin sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. dhalinyarada martasharafta dadka ka soo qaybgalay xafladan raga abaaburay oo dhalinyarada ah aad iyo aad ugu hambalyeeynaa. waajib saaran bay sameeyeen iyaga qadiyada runta waxay taabantaa dhalinyarada weeye waa dhalinyarada. taas waa mid kale hal dhan istaagaan oo kaliya iraahdo war sharafkaaga iyo karaamada qofna ha amaahin qofna magan ha ugu noqon. adiga sharafkaaga iyo karaamadaada qofna magan ha ugu noqon. haddaad ugu noqoto abuurtaanka iyo tirtaanka waa lumaya. xiiray maxamuud cabdisalaan oo kamid ah dhalinyarada maanta soo qabanqaabisay banaanbaxan lagu taageerayo nabadda loogana soo horjeedo amni xumada ayaa sheegay in cid alla iyo ciddii isku dayda in ay dhaawacdo khalkhalna geliso amniga haddii ay yihiin dhalinyarada waqooyiga galgaduud ay ka hortegayaan iyaga oo kaashanaya maamulka. waxaana ay bulshada kula taliyeen in si wadajir ah looga hortago midka ku cayaaraya sumcadda deegaanka ee nabadda wax u dhimaya. waxaan ka mid ahay dhalinyarada degmada Cabudwaaq. waxaan u soo qabanqaabinay shirkaan annaga soo qabanqaabinay xafladan waxaan u soo qabanqaabinay in baasan badan oo ka jira deegaankeena aan ka dhiidhinay baan ka kacanay. waxaan aragnay maamniga in khalkhal lagu hayo. waxaan aragnay in maamulkayagii noo dhisay in la rabo in la calqaateeyo. waxaan aragnay sumcaddayadii magacayagii in lagu ciyaaro. waxaan aragnay in daradkayga lagu diro. waxaan u dulqaadan weyne waxa ka jira deegaanka dadka ka shaqeynaya fidnoodayaasha waxay wadaan baan u dulqaadan weyne. haddaan ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee degmada Cabudwaaq iyo waqooyiga galgaduud waxaanu gacan birarnaan ku qabanno dadka ku haya khalkhalka amnigayaga iyo jiritaankayaga iyo samcaddayada iyo dawladdayada dadka khalkhal ku haya oo diidan baan rabnaa inaan ka hortagno. banaanbaxan ayaa yimid kadib markii toddobaadkii tagay magaalada lagu dilay nin dhakhtar ahaa oo ka shaqaynaya magaalada isla markaana bulshadu ay aad uga xumaatay kana dhiidhisay arrinkaasi. waxaana ay maanta ka muujiyeen sida ay ugu xun yihiin falkaasi iyagoo sheegay in mar dambe uusan dhici doonin falal caynkaasi oo kale ah. Bashiir Yuusuf Nadaara TV-ga caalamiga Somalisat waqooyiga gobolka Galgaduud magaalada Cabudwaaq.